daawadayaal halkan waxay ku soo gudbin doonaa ambiyadii Ilaahay soo diray iyo meedalka ay ka soo kala jeedeen asal ahaan nabigii ummadan aabihii ummadan nabiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka soo jeeday dalka imika loo yaqaano Sri Lanka nabiyullaahi nuux calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka soo jeeday dalka haatan loo yaqaano Jordan nabiyullaahi shucayb calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka soo jeeday dalka Syria Salah calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka soo jeeday dalka haatan loo yaqaano Lebanon nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka soo jeeday dalka haatan loo yaqaano Falastiin wuxuuna ku dhintay dalka Ciraaq nabiyullaahi ismaaciil wuxuu ka soo jeeday dalka loo yaqaano Saudi Arabia Yacquub calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka soo jeeday dalka haatan loo yaqaano Falastiin Yaxya calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka soo jeeday dalka haatan loo yaqaano Falastiin Zakariya wuxuu ka soo jeeday calayhi salaatu wasalaam sidoo kale Falastiin Isxaaq wuxuu ka soo jeeday calayhi salaatu wasalaam sidoo kale Falastiin Yuusuf wuxuu ka soo jeeday calayhi salaatu wasalaam Falastiin Luud calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka soo jeeday Ciraaq Ayuub calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka soo jeeday dalka Jordan Huud calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka soo jeeday dalka haatan loo yaqaano Yemen nabiyullaahi Muhammad calayhi sallallahu calayhi wasallam wuxuu ka soo jeeday dalka Saudi Arabia daada nabiyada Adam wuxuu jiray 1000 sanadood Nuux wuxuu jiray 950 sano Shucayb wuxuu jiray 882 sano Salah wuxuu jiray 586 sano Zakariya wuxuu jiray 202 sano Ibraahim wuxuu jiray 195 Suleymaan wuxuu jiray 150 sano Ismaaciil wuxuu jiray 137 sano Yacquub wuxuu jiray 129 sano Muusa wuxuu jiray 125 sano Isxaaq wuxuu jiray 120 sano Haaruun wuxuu jiray 109 sano Yuusuf wuxuu jiray 110 sano nabiyullaahi Muhammad sallallahu calayhi wasallam wuxuu jiray 63 sanadood oo kaliya waana ambiyada Ilaahay nabigii ugu dambeeyay uguna cimriga yaraa fadlan sheer gare qof kasto sheer gareeya waxaan Ilaahay u weydiinayaa inuu ajar iyo dambi dhaaf uga dhigo